ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله كسر دوادة channel كسربيان ما أنتم حين القيب سنة يا باست مكرونة تشيز قاب كانوا سمي تاب الشواحان سوق عدن قسمينا إن شاء الله. هذا وحنا قبل ويا باست إن سوكر صد هدي الله يرى هذا بيع يعني تبقى صارت كده من أسبوعين كتر صد مركزي سوكرنا باست دي أيام كشوفي إن شاء الله ومكرونة دي باكو ترصدي قاعدة نحمرنا أيام كده من أساسا مكرونة وقلت جاية ويصاب سلام إن شاء الله. هذا waxaa rabaa marka inaan diyaarsado sooskii ama suugadii aan ugu talagalay baastada. Marka waa kana digsiyan dabka saartay waxaan ku soo darsaday waa butter ama subag. Subaga haysta isticmaali kartaa iyo butter ala filterkii aad haysatid. Marka waxaan ku soo daray 2 qaado oo bur ama daqiiq ayaan ku soo darsaday. Kadib waxaan isticmaalayaa koob iyo bar adiga 2 koob oo dhadhow oo caano ah ayaan isticmaalayaa. tartiib ayaan ugu darayaa. Waxaan sameynayaa ilaawin inay tahay suugadii baastada. Marka waxaan ku shubay butterkii markuu ii soo dhalaalay iyo burkii waxaan ku darayaa caanaha waxaan ugu darayaa tartiib dabku aad kaaga dheeraanin way ka gubanaysaa. qaadadana waa inaa cabaar walaaqdid ilaa intii mataqaana sayna burbur iyo waxba kaaga yeelan. Hadda waa kana waa ii soo adkaatay intii aan ka rabay maasha Allah. Hadda waxaan bilaabaa inaan cheese ku daro. haddii aad mataqaana foornada ama ovenka aadan gelinaynin digsiga waa inuu dabka ku saarnaada oo aad dabka ku dul shubto cheese iyo waxyaabaha aad ku dareysid. Haddii aad foornada gelinaysidna ka soo qaad sidan camal u samee. Aniga waxaan rabaa inaan geliyo ovenka ama foornada saas daraadeed dabka waa ka soo qaatay. Iyadoo halkan ii taalo ayaan cheese ku darsaday 2 cheese oo kala nooc ah ayaan ku daray. Waxaan ku soo darsaday barbarooni shiidan iyo filfil shiidan iyo cusbo yar. Kadib makaroonadii waa diyaar ii noqotay ii soo bislaatay gabigeediiba waa ku soo gadiyay suugadii oo dhulka ii taalay waan in isku qasaaya si fiican isku dhexgelinaa cheese iyo wixii aan sameeyay. Suuga cad waaye wax kale ma lahan. waa kaas aad iyo aad u fiican tahay ciyaalkana aad u jecel yihiin maasha Allah. makaroonada noocan ciyaalka aad u jecel yihiin. Marka waa kana wixii dhan waa is dhexgeliyay cheese isku jiidanaysa yaabay maasha Allah tabarakallah ilaahadan siiyay. Kadib waxaan sameynayaa baastadii oo dhan waxaan ku soo shubayaa saxanka sidii aan ovenka u galiyo. Saa ku sheegay oven haddii aad ku safaysanay digsiga dabka ku saarnaa dab yar oo tartiib ayaad ugu sanaysaa. Ani waa kana ovenka ayaan rabaa inaan u diro. Marka waa kana ovenka u diraya insha Allah. Saana sameynayaa ayada dhan waa isku soo wada daray. waa qada aad iyo aad u fudud aadna mataqaana isu waqti badan ka qaadanayna ilmahaagana aad uga helayaan maasha Allah tabarakallah. aad ilmaha u jecel yihiin Allah hanoo siyaad intaan haysan hasiyo. cheese yaraan dusha ugu subaya macna badan ma sheegayo cheese-kaani just waxaan rabaa inuu si fiican igu soo dhalaalo si fiican ugu soo karo. ovenka ayaan u diray oven kadibna waa kana way soo baxday maasha Allah tabarakallah qurux ay soo noqotay. wixii dhan waa isdhexgaleen baastadii si fiican isku soo huurtay si fiican isku soo dhexgashay. 25 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ayaan ovenka ku hayay. Marka waa kana cabaar yar kadib aan sugay wax yar aan sugay. waxaan tusayaa inaan guro waxa fiican cabaar inaan sugtid laakiin idinka aan tusayaa inaan soo guro markaa hadhow haddii aad cabaar inaad diisid ayada isku suuga soo dhagtay way ku kaaga soo bixaysaa makaroonida. Marka waa kana waxaan isla waqtiga ku dheeraanaya waxaan sugin waa kana horaan ka soo bixiyay horaa ka guray. cajiib way baastaan aad iyo aad u macaanta maasha Allah tabarakallah. way soo tijaabi insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doonto suugadan cad ee baastada ciyaalkana ay aad iyo aad uga heli doonaan. waxa aan ku daray waa oregano ayaa la dhahaa ma aqaan Soomaali wax lagu dhaho. waxa waaye waa Italian herbs biisada iyo baastada iyo waxyaabahaas aad iyo aad u fiican yahay. aad u mahadsantahay daawashada aan daawan bilsa hadii aan ku cusubtaan naga ilaahay subscribe kana telegram bilkana afrida. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.